بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتسجيلات الحسينية الإسلامية والدروس 10 لها الدين الحسيني. محاضرة عنوان كده وحوي انقراض الأمم أمضى تبرقع أمضها. وحنسوي سيدنا شيخ مصطفى إسماعيل هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، عن سيدنا إن الكلمات كان لعنه موضوع التربية كده بالسن انقراض الأمم. انقراض وترترن كاي أمضي ترترن أما بابا أي أمضي بابا أممكو لبط يود مدون بيو ترترما كي هرم منقرض كاها أمضو معاصيدو دي شركو دي وحدي مركو بطي إلهي سبحانه وتعالى ودولك اللقويه أما تكلبه وحلاقه وحلاق سماوي وقضعه ومضاها في حلاق سماوي وقضعه ذاتهان أما تشبكو دي يعقلكو دي يمانكو دي وحدي بواي وضطقه ويدمتان مكا كقارنا وحيقول دمتان سيدا في قدسة ضدكو وحرا oo dhashoodii iyo safiirtoodii iyo waxoodii way joogaan, laakiin waxaa tirtirma waxay rumaysnaayeen iyo dhaqankoodii iyo caqaa'idoodii iyo mabaadi'dii iyo waxay raacayeen baa tirtiranta. dabeetana waxaa soo hadha ummad bedelaysa ummaddii hore oo aanay ummaddu se ummaddii ahayn. umamkaa dambe ee tirtirmaya waxaynu odhan karnaa amraad baa ku dhacda ama bukaano, xanuunnaa ku dhaca. xanuunnadaasaan odhan karna waa xanuunnada maanka kaga dhacee dooriya, kadibna way tirtirantaa. waxaan jeclay markaasi inaan tilmaamo aayado qur-aan oo fii suurati alacraaf ku yaalla oo ilaahay subxaana wa tacaala kaga digayo bulshada bukaanada ku dhaca ee tirtiranka ku samayn kara. waa nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu ilaahay abuuray, durriyadii dhabarkiisa ku jirtay uu soo saaray, uu ballanka ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala. ballankaasi aadam laga qaadayey iyo dhashiisii waxaa lagaga qaadayey waxyaabaha fitrada ama si abuurka bini aadamka khalkhalga geliya inay ka waantoobaan. ilaahay wuxuu kitaabka qur-aana ku leeyahy: waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaluu bala shahidna an taquluu ywma alqiyaamati ina kuna can hada gaafiliin aw taquluu inama ashraka aabaa'una min qabl وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إلهي سبحانه وتعالى آيات كقرآن وحين وشيغية إن غير بني آدم لقى قاضي بلك ضبط يا أبهدي وكترين إلهي صوصاري سبحانه وتعالى إنه بلك قاضي. إلهي ويديهم أنا نقول ربكينا هين. قالوا بلى شهدنا وكما خاتك إن الله سبحانه وتعالى ربي وي. إلهي وحينو شيغي يا مركاسي علدا لو مرخاتك لينا يكون هين لبا حنوننا أنا هدو ميتكو مرمرصونين أما لبا علو وأحكوا فطرة بني آدم كبابين كرم مدي وحويا إنا كنا عن هذا غافلين أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن إذن أرنين با إلهي إليه سبحانه وتعالى ما لنت قيامها
annagu waxaanu ahayn kuwo ghaafiliin aan waxba ogeyn warmoog baanu ahayn aw taqulu ama se inaydan odhan baa ilaahay leeya inamaa ashraka aabaa'una min qabl wakuna duriyata min bacdihim afatuhlikuna bima facala almubtiluun ama se inaydan odhan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala aabbayaashayadii hore iyo dadkii horaa shirkiga sameeyey ama se xumaha sameeyey annaguna waanu iska daba soconno duriyad iyaga ka dambaysay baanu nahay un ee ma acmaashii kuwa hore sameeyeen baana lagu halaagaya waxaan leenahay caqliga bini aadamka qofka bini aadamka ah haddii maanka laga degiyo maskaxda waxba fahmi waayo doorsoon ka weyni ma jiro doorsoon masaladaasi ka weyni ma jiro hadday cidi ku gumaysato laakiin ay xoog kugu gumaysato maskaxda iyo maanku si ay fayo qabaan waxaad ogsoontahay inaad la daydayayso un jaanis ama wakti aad iska kicin karto maalintaad iska kicin kartana waaba yeeli maysa waad ka suuraysa laakiin haddii maanka lagaa gumaystiyo maskaxda waxaad moodaa inaad dabagelayso ciddii ku gumaysanaysay adoo weliba raalli oo iska daba socda sida daraaddeed labadan shay ee abuuri kara qofka maskaxdiisa in la gumaysto amase ummadda tani inay tirtiranto midi waa gafla midina waa taqliid algafla ilahay wuxuu leeyahy inaydan odhan maxay inaa kuna can hada gaafiliin gafladu waa qofka oo aan isticmaalin qalabka alla siiyey subxaana wa tacaala ee loogu talagalay inuu baadida kaga hanuuno insaanka ilaahay subxaana wa tacaala adawaad buu siiyey adawaadkaasoo loogu talagalay inuu baadida kaga hanuuno waxaa la siiyey qofka bini aadamkaa il iyo dheg iyo maan kala sooca waxay ishiyo dhegtu keenaan saddexdaasi shay ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala inay yihiin ajhiza alistiqbaal alfitriya ama qalabka qofka bini aadamkaahi uu wax ku kasbado ee uu wax ku kala garto hadduu sidii loogu talagalay u adeegsan kari waayena markaasi martabadii bini aadamnimada wuu hoos maraya qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qaar lumay oo bini aadamka ka mid a kuwaasoo ilaahay uu ku sifaynayo inay hoos mareen heerka xayawaanka xataa aakhirana ilaahay yidhi waxay xaabo u yihiin jahannama kuwan sifadoodu waa maxay ilahay wuxuu leeyahy walaqad dara'naa lijahannama kasiira min aljini walins lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kaalancaam bal hum adal ulaa'ika hum lgaafiluun alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy dad baanu jahannamo u abuuray jinka iyo insigaba ka tirsan dadkan ahlu naarka ah sifadoodu waa maxay sifada ay leeyihin waxay tahay baa ilaahay leeyahy lahum quluub laa yafqahuuna biha qalbiye ayay leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin qalbiyada tan wax kuma fahmaan fiqhi ma leh fiqhigu waa kalaamka lagu hadlayo masalan oo aada muraadka looga dan layay fahamto aanad erayadoo qura fahmine muraadka iyo ujeedada laga leeya aad fahamto walidalik ba qur-aanku wuxuu tilmaamaya mushrikiintii fama lihaulaai alqowm laa yakaaduuna yafqahuuna qawla alluga alcarabiya way garanayeen oo dee ahalkeed bay ahaayeen haddana waxaa la leeyahay laa yakaaduuna yafqahuun fiqhiga waxaa la leeyahay muraadi lmutakalim baanay garanaynin fiqhigu wuu ka xeel dheeriyabaa markaa la yidhaha fahamka caadiga ah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa kani quluub bay leeyihin laakiin qalbiyadooda fiqhi ma leh wax kuma gartaan walahum acyun indhay leeyihin baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala laakin laa yubsiruuna biha waxba kuma arkaan walahum aadaan dhegay leeyihin baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala laakin laa yasmacuuna biha
maxaa loo jeedaa marka saddexdii shayba saddexdii shaqo ay qaban jireen laga anfiyey? saddex shaqo, qalbigu inuu wax fahmaa bay ahayd, ishu inay wax aragtaa bay ahayd, dhegtuna inay wax maqashaa bay ahayd. waxaanay ahayd saddexdan shayba sida caadada aynu ku naqaano qofka ila dawaxun waa arkaa, laakiin ilaahay wuxuu ku sifaynaya kuwa kani inaanay waxna arkayn, waxna maqlayn, waxna fahmayn. macnaheedu waxay tahay wixii looga dan lahaa inay ku qabtaan baanay si rasmiya ugu qabanayn. sida daraaddeed baa ilaahay sifo siiyey ulaa'ika kalancaam, kuwani waxay la mid yihiin baa ilaahay yidhi xoolaha. ulaa'ika kalancaam, xoolahay la mid yihiin. xooluhu dhegna waa leeyihin, illa waa leeyihin. dhegta wax waa ku maqlaan, isha wax waa ku arkaan, laakiin ma dhaafto dawaahirta. waxba kuma taxliiliyaan, kaflo kama baxaan. halkii shalay dawacadu ku cuntun bay haddana laxdiyo riduba maraan. waxbay kama bedelaan. halkay shalay daaqday ogeyd in dawaca ku cuntay, berrina daaqdaa una dawacadu ku cuntaa. laakiin waxay ahayd isha iyo dhegta soo jeeda ama se wax fahmaysa halkii shalay lagu helay inaan maanta lagu helin. walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey qofka mu'minkaa ama muslimkaa god laba jeer laguma wada qaniino. waayo marka hore uu ogaaday in lagu qaniinay, marka dambe macquul maaha inuu haddana halkii godkii farta ku celiyo oo mar labaad lagu qaniino. xayawaanku se ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay martabadaa ka hooseeyaan, ama iyagu inay waxay dee yeedhana ku maqlaan, waxay cunayaanna afka ku cunaan, intanna ku isticmaalaan ishooda ayaa loogu talagalay. bini aadamkuna hadduu intii xayawaanku u isticmaalayay dhashaye dhegta iyo isha uu isticmaalo in leeg, xooluhu la mid yihin. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy ulaa'ika kalancaam, kuwani xoolahay la mid yihin baa la yidhi subxaana wa tacaala. ilaahay haddana wuu ka reebo, waxaa la yidhi bal hum adal, xoolaha way ka liitaan. waayo xoolaha dhegtooda iyo ishooda dee intaasun baa loogu talagalay, muhimadii loogu talagalay way ku hayaan iyagu. laakiin kuwa kani way ka liitaan oo dhegtan iyo ishatan iyo maqalkan iyo maskaxdani may gaadhin xadkii loogu talagalay. haddii markaa xadkaa la dhaafiyo la yidhaaho way ka liitaan, maxaa lagu sifaynaya? sifo kale a la siiyey markaasi subxaana wa tacaala. ulaa'ika hum alghaafiluun baa ilahay yidhi. haddii kuwan sifo markaa loo rabo, sifadoodu waxa weeyaan baa ilahay yidhi alghafla, waa kuwa aan waxba ogeyn, warmoog. في سورة النحل آيات كلا إلهي وحكولي أولئك الذين طبع الله قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون بالله سبحانه وتعالى. غفلة دوا موجن وقفك أوح لنو ليان تسي عن ولن ولين أما سيان أجيد. نبي الله موسى مركم مقالة قال محاي إلهي كسفيني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. حين غفلة waa wakti aan dadka ishoodi iyo dhegtooda iyo dareenkooda aanu si fiican u shaqaynaynin oo la deganaa ayaa la lahaa xiina gafla. qofku hadday noloshiisu markaa xiinu gaflo miidhan noqoto, waa kuwa ilahay leeya ulaaika hum alghaafiluun. marka hadduu warmooganayi oo dhegtiisa iyo ishiisa iyo caqligiisu aanay faa'iidaba keenaynin, ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa insaanku inuu u liito ama waxaa dunida kor socday inay ugu liitaan kuwa aan dhegta iyo isha iyo caqliga isticmaalin. dawaabta kor socoto dhan dhulka kuwaasaa ugu liita. walidalik baa ilahay wuxuu leeyahy ina shara adawaabi cinda allah asam albukm aladiina laa yacqiluun. dunida waxa kor socda baa ilahay leeyahy waxa u shar badanba alla agtiisa asum albukm aladiina laa yacqiluun. sifaadka kuwa leh, kuwaan maskaxda isticmaalayn, ee afku aamusan yihin, ee aan xaqa maqlayn, ee aan ku hadlayn, ee arkaynin, kuwaas baa ugu liita baa la leeyahy. gafladu markaa waa waxa aada la nooshahay iyo aayaadka rabbiya kownkan dul saaran oo aanad eegaynin ama si aanad ka faa'iidaysanaynin. dadku inay warmoog noqdaan oo qaabkaasi u noolaadaan waa dembi. waa dembi aakhiro laysu qabanayo, bal ee lagu naargelayo. walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy isagoo inoo tilmaamaya gafladu inay dembi tay.
cadamu tafkiir inay macsiyatay qofku aan fakerin oo maanka sidii loogu talagalay u isticmaalin inay macsiyatay balaha dihniya inay cuquuba leedahay iyadoo la tilmaamayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahy ahlu naar isagoo ka warramaya law kunna nasmac aw nacqil ma kunna fi asxaabi asaciir waxay leeyihin law kunna nasmac haddaanu ahayn kuwa wax maqlaya ama kuwa maanka isticmaalaya caqligoodu suubanyo isticmaalaya ma kunna fi asxaabi saciir bay leeyihin maanan halaagsaneyn saciiro dadka gala kamaanan mid noqoneen haddaanu sifaadkaa leenahay bay leeyihin maanka iyo maskaxda iyo caqliga iyo aragtida haddaanu isticmaalayno maanan noqoneen bay leeyihin kuwa saciiro gala ilaahay muxuu ugu jawaabay markaa faactarafuu bidambihim baa layidhi faactarafuu bidambihim dembigoodii way qirteen ba alla leeyahy subxaana watacaala fasuxqan liasxaabi saciir fogaanshiiyase waxay u sugnaaday ba alla leeyahy subxaana watacaala asxaabu saciirka kan waxaan leenahay gaflada caynkana dadkan mu'miniinta aan wacyigaba lahayn aan ogeyn caalamkaba waxa ka socda godkii shalay lagu qaniinay maantana lagu qaniinayo dhabaday 60kii hayeen 90kiina haya ummadan aan aragtidoodu isbedelka lahayn waa umma munqarida ummad aan wacyi yeelanayn oo marnaba toosayn oo garaadkoodu baraarugaynin waa ummad dabar go-aysa waxaan leenahay gafladu waa sifa min sifaati alkaafiriin waa sifo lagu yaqaano gaalada waxaanay qofka gaadhsiin kartaa ilaa jahannam ilaahay baa gaalada isagoo sifaynaya wuxuu leeya yaclamuuna ظaahira min alxayaati اdunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun nolosha adduunya dawaahirteeda way yaqaanin baa la yidhi subxaana watacaala laakin dee noloshu intaa kuma gebagabaysanto ta aakhiray dhammaanteed gafla kaga jiraan baa ilaahay leeyahy yani noloshu way xidhiidhsantay tan hore ilaa ta aakhire way xidhiidhsantay markaa qayb bay wax ka ogyihin ba alla leeyahay subxaana watacaala laakiin qaybta ugu weyn bay gafle kaga jiraan qofka mu'minkaa laakiin uma banaano isaga labada qaybood qaybna inuu gafle kaga jiro walidalik baa ilaahay isagoo gaaladii la hadlaya wuxuu leeyahy awalam yatafakkaruu fi anfusihim baa la leeyahy ma khalaqa allahu samaawaati waalarda wamaa baynahuma ila bilxaq aayadda ku xigtaa ilaahay leeyahy awalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim waxay leenahay faariqa ama sifada rasmiga ee u dhaxaysa mu'minka iyo kaafirku ee qur-aanku tilmaamaya koo waxa ka inuu mu'minku yahay qof fakiraya walidalik baa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ina fi khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اleyli wاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wacalى junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار waxaa alle subxaanaه watacaala tilmaamaya cirkan ama samaawaadkan iyo dhulkan habeenkii iyo maalintii iyo iskagedigooda inuu aayaat ugu sugan yihiin dadka ulil albaabka ah dadka cuquusha u saaxiibka ah waa kuwee kuwa cuquusha u saaxiibka ah waa kuwa ilaahay xusaya caqligu hadduu xuska ilaahay ku gaadhsiin kari waayo caqli maaha waa ka gaaleeda ku koobnaaday daahir alxayaati dunya caqli maaha idan waa caqli ilaahay xusaya subxaana watacaala oo weliba alle ku xusaya qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim fii kulli axwaalihim xusaya sifada kale ay leeyihin waa maxay dadka kale wayatafakkaruuna fi khalqi asamaawaati waalardi baa ilahay waa dul fakerayo ka fakeraya cirkan iyo dhulkan iyo sida alla u abuuray subxaana watacaala fikradooduna marka ay gaadhsiisay inay ka istimtaajaan ka midho dhaliyaan adduunkan iyo samaawaadkan iyo cirkan iyagoo leh markaa rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab annar walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadkani markay kusoo degtay uu lahaa waylun liman qara'aha walam yatafakkar hoog wuxuu usugnaaday buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qofka akrinaya ee aan fakeraynin
qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qisaska qur-aanka ku yaalla waxay tusaale ka yihiin wax kasta oo nolosha ka mid a hadday tahay istibdaad siyaasiya gumaysi iyo dictatornimo la ysugu taliyo hadday tahay dhaqaale munxarifa iyo tujaar dad cunaqabataysa hadday tahay cuqaal iyo ummadda waqsan oo dadka lumisa hadday tahay dad dhaqan xun iyo akhlaaq la yimaada mid walba qiso nebi oo qur-aanka ku taallabaa tilmaamaysa waa qisas ilaahay ugu talagalay ummadda muslimiinta inay fakeraan oo dareemaan oo arkaan matala nebi shucayb iyo qoomkiisa ilaahay inooga warramaya qisada shucayb oo dhan ee qur-aanka ku taalla waxay ka warramaysaa masale iqtisaadka ku saabsan